بسم الله الرحمن الرحيم waxaan u yeerayaa gudoomiyaha golaha wakiilada dawladda Puntland mudane Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo si uu halkan uga dhawaaqo natiijadii wareegii saddexaad ee doorashada madaxweynaha dawladda Puntland uguna dhawaaqo madaxweynaha dawladda Puntland ee 5 sano ee soo socota mudane gudoomiye ku soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله الذي كفى وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نتيجتي wareegga saddexaad ee doorashada madaxweynaha dawladda Puntland labadii mudane ee ku tartamayay waxay u kala heleen codkii sidan soo socota kow General Asad Cismaan Cabdullaahi wuxuu helay 31 cod laba Siciid Cabdullaahi Deni wuxuu helay 35 cod 66kii cod ee xubnaha golaha wakiiladu saas ayay ku dhan yihiin waxaan marka qirayaa inuu ku guuleystay madaxweynaha dawladda Puntland 5 sano oo soo socota 2019 ilaa 2023 ama 23 mudane Siciid Cabdullaahi Deni waana u yeerayaa inuu soo taago halkan kelmadiisana uu yiraahdo بسم الله الرحمن الرحيم قدونك قولها وكيلة استمادة حبناها بارلمانك صاحبدي ترتنك أنكوذا جرني دمان مرتشرفك هالك سكوتمت علماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan shacabka Puntland iyo guddiga hagaayay doorashada maanta halka dhacday oo muujisay si ay ku jirto ilbaxnimo deganaan kuna dhacday si nabadgelyo ah waxaan halka uga mahadnaqayaa madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo ku-xigeenkiisii hore mudane Cabdixakiin iyo dhammaan madaxda dawladda Puntland ciidamo iyo rayidba waxaan aad ugu faraxsanahay natiijadii halka soo baxday waxa ay bilaabatay waji cusub oo dadka reer Puntland aan rajaynayo inaan mas'uuliyadda ay saareen aan ka soo bixi doono waxaan ka codsanayaa dhammaan shacabka inta halka joogtay inta maqanba inay gacmaha isqabsadaan inay dhismaha Puntland iyo Soomaaliya ka fakaraan in waji cusub oo walaalnimo ah uu bilowdo doorashadii maanta halkaas ku eg tahay dhibaatadii iyo isjiijiidkii ay lahayd marxaladii aan ku jirnay doorashadu way dhamaatay waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa General Asad oo aan ku soo harnay wareegii ugu dambeeyay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم سيدا شرعي iyo dastuurka Puntland qabo waxa sharci ah in madaxweynaha golaha hortiisa iyo dadweynaha lagu dhaariyo waxa dhaarinaya gudoomiyaha maxkamadda sare sida dastuurka qabo gudoomiye ku soo dhaw بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan ku dhaqmo diinta islaamka inaan ku dhaqmo diinta islaamka dastuurka dawladda Puntland iyo qawaaniintiisa dhowro dastuurka dawladda Puntland iyo qawaaniintiisa aan dhowro xilka la ii dhibay daacadnimo u guto xilka la ii dhibay daacadnimo u guto dalka iyo dadkiisa lillaahi ugu adeego dalka iyo dadkiisa lillaahi ugu adeego kugu wallaahi ba waa igu wallaahi wasalaam waxaan u yeerayaa iminka jenaraal asad cismaan cabdullaahi oo ay wareeggii u dambeeyey ku tartameen madaxweyne siciid cabdullaahi deni si uu kelmaddiisa halka uga yidhaahdo jenaraal